shirkan aan caadiga ahayn ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo weheliyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xamse Cabdi Barre ay la qaateen guddiga qaran ee la dagaalanka lacag dhaqidda iyo ka hortagga maalgelinta argagixisada ayaa looga hadlay dardargelinta tallaabooyinka lagu beegsanayo ilaha dhaqaale ee kooxaha qawaarijta ah oo toddobaadyadii la soo dhaafay la kulmay cunaqabateena dhaqaale iyo wax ka qabashada faldambiyeedka lacag dhaqidda. guddigan oo ka kooban mas'uuliyiinta wasaaradaha maaliyadda, cadaaladda, ganacsiga, amniga, taliyaha sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka, gudoomiyaha bangiga dhexe iyo agaasinka hay'adda warbixinada maaliyadeed ayaa madaxweynaha la wadaagay xogo ku saabsan howlgallada hakinta akoonnada dhaqaalaha loo mariyo argagixisada, burburinta goobaha ay ku qaadi jireen lacagaha baadda ah, beegsiga shakhsiyaadka dhaqaalaha u aruuriya argagixisada iyo qorshayaashooda ku aadan la dagaalanka lacag dhaqidda, iyaga oo sidoo kale shirka ku soo bandhigay tallaabooyinka dhiman ee xididada loogu siibayo gabi ahaanba awoodda dhaqaale ee qawaarijta. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xubnaha guddiga faray dardargelinta howlaha ay u idman yihiin ayaa hoosta ka xariiqay in tallaabad sharciga waafaqsan laga qaado cid walba oo lagu helo inay kaalmayso argagixisada diidan nolosha dadkeena. madaxweynaha ayaana tilmaamay in dowladda ay ka go'an tahay in lagula dagaalamo qawaarijta awood waliba oo la heli karo. dowladda Soomaaliya oo guulo muuqda ka soo haysay dagaalka tooska ah ee qawaarijta ayaa sidoo kale xoogga saartay dagaal dhaqaale oo lagu curyaamiyay ilaha maalgelin ee helaan argagixisadu iyo dagaal dhanka fikirka guracan ee xagjirnimada iyada oo daaha laga qaadayo been abuurkooda ka dhanka ah diinteedna suuban iyo ficiladooda guracan ee aan meelna ka soo gelin diinta Islaamka.